kadib weerarkii lagu qaaday xerada xalane ee magaalada Muqdisho waxa weerarkaas siyaabo kala duwan uga hadlay siyaasiyiinta mucaaradka iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda kuwaas oo qoraalo kala duwan ku soo daabacay barahooda bulshada. mas'uuliyiinta soo hadal qaaday weerarkan waxaa ka mid ahaa Cali Yare Cali, gudoomiye ku-xigeenka amniga maamulka gobolka Banaadir oo ay saaxiib dhow yihiin madaxweyne Farmaajo, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo sidoo kale xildhibaan Mahad Salaad oo ka mid ahaa xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya kana mid ah siyaasiyiinta aadka u dhaliilsan madaxweyne Farmaajo. aan ku horeyno aragtida siyaasiyiinta mucaaradka ee xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. qoraal uu ku daabacay bartiisa Facebook xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa u qornaa sidan: maalmahan oo idil waxa isoo gaarayay digniino isa soo tarayay oo ku aadan amnigeena shakhsiga iyo in la qorsheynayo weeraro lagu qalqalgelinayo amniga laguna abuurayo cabsi gelin. weerarka maanta ka dhacay xerada Xalane waa bilowga howlgalkaas. qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiri Al-Shabaab xoog kuma soo gelin gudaha, wayna caddahay in lala shaqeeyay loona fududeeyay howlgalka. waxaa kaloo iyana muuqata in weerarkii maanta uu jawaab u ahaa fariintii ahayd in doorashada guddoonka baarlamaanka lagu qabto teendhada Afisyooni. dalku waxa uu ku jiraa xilli xasaasi ah oo kala guur ah, welina hay-adihii amniga waxay gacanta ugu jiraan koox aan sariig lahayn oo waddo kasta u maraya xaqiijinta dantooda shakhsiga ah, taas oo u muuqatay inay ahayd fariin si gaar ah ugu socotay madaxweyne Farmaajo. waxaa kaloo qoraalka xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame fariin loogu diray ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta, taas oo ahayd sidan: intan ka badan ra'iisul wasaare Roble indhaha kama qabsan kartid mas'uuliyadda ka saaran dalka, gaar ahaan amniga iyo howlaha xilwareejinta xilliga kala guurka ah. waa in xukuumaddu qaado tallaabooyin muuqda oo dib u habeen loogu sameynayo hoggaanka hay-adaha amniga, xilkoodana loo dhiibaa shakhsiyaad lagu aamini karo amniga dalka, farahana aan kula jirin siyaasadda iyo doorashooyinka. haddii taasi degdeg u dhicin waxaa ka dhalanaysa in shacabka idinka iyo dowladnimada uu idinka aamin baxo. sidaas oo kale isna waxaa qoraal soo daabacay bartiisa Facebook-gana ku soo hadlay xildhibaan Mahad Salaad, isaga uu yiri 5 sano ka hor hangarkii Afisyooni lagu doortay xukunka dalkana lagula wareejiyay ayaa maanta xabadi ka socota. duulimaadyada gudaha iyo dibadda ayaa mar qura istaagay. 12 sano ka hor Al-Shabaab meel weligood aysan imaan ayay maanta ka dhex dagaalamayaan. Farmaajo dal iyo dad midna lagama dhaxli doono ee hambada hartay ha laga badbaadiyo ayuu ku soo gabagabeeyay qoraalkiisa xildhibaan Mahad Salaad. qoraal u muuqday in uu jawaab u ahaa xildhibaanada mucaaradka ah ayaa asna bartiisa Facebook sidoo kale waxaa ku soo daabacay gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Banaadir Cali Yare Cali, kaas oo ahaa: markasta oo la bilaabo qorshaha la wareegidda amniga dalka waxaa weerar lagu ekeeyaa garoonka Aadan Cabdulle. ma ahan wax qarsoon inay jiraan dawlado diidan xasiloonida dalka, ayaa lagu soo gabagabeeyay qoraalka bartiisa uu ku daabacay gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Banaadir Cali Yare Cali. Cabdinaasir Socdaal, Bilan Radio.